بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة إيو كسو دوادا برنامج كيني بغداد أونلاين أكاديمي أسبوع لها أها حلقة دينا أسبوعا وحنكسو قادم دونا وحيابها وقتك بخامية. xalaqadii ugu horeysay waxaan ku soo qaadanay waxyaabaha waqtiga lumiya. xalaqadii ka sii horeysayna waxaan ku soo qaadanay waqtiga iyo ahmiyadda uu leeyahay. waqtigeena oo ahmiyadda faraha badan leh oo aan soo ogaanay waxyaabaha lumiya waqtiga oo aan rajaynay inaan qorshe ka gaarnay inaan waxyaabahaas ka takhalusno. waxyaabaha inaan barano sidoo kale muhiimka waxa kamid ah waxyaabaha waqtiga noo beeqaaminay. waqtigeen inuu barakoogo, waqtigeeni faa'iido uu yeesho, waqtigeeni tayadiisa aan aragno, waxyaabaha gacanta ka geysan karo ayaan insha Allah ta'ala ku soo qaadanayna haduu Ilaahay raado. qodobka koowaad waa qorsho. inaad leedahay qorsho oo aad taqaanid waxa aad sameynaysid iyo xilliga aad sameynaysid. cilmi baaris la sameeyay waxa lagu ogaaday hal saac oo qorsheyn kaaga baxda waxay ku beeqaaminaysaa 3 saacadood ilaa 4 saacadood oo waqtigaaga kamid ah. hal saacadood oo kaaga luntay inaad qorshe dejinaysay, inaad waqtigaada qorsheynaysay, xilli walba waxaad qabanayso waxay ku beeqaamin kartaa oo ay u dhigantaa 3 saacadood ilaa 4 saacadood oo waqtigaada kamid ah. marka waxaad dareemi kartaa qorsheynta qaybta inta ay la eg tahay ee muhiimadda ay leedahay. qofka markuu waqtigiisa wuxuu qabanayo og yahay, xilliga uu qabanayo og yahay, wax aan horey loo arkin baa ka soo baxaya. asagii laftiisa baa isla yaabaya, ummadii baa la yaabayso. tusaalaan haddaan soo qaato imaam ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala waxyaabaha laga sheego waxa kamid ah oo imaam ibn al-Qayyim laftiisa uu warinaya waxa kamid ah oo ajaa'ibta leh in uu alifay uu sanifay uu qoray in ka badan 1000 kitaab. hal qof ayaa wuxuu qoray oo uu sanifay 1000 kitaab. shay qariib Soomaa waqti gaar ma helin. intaan anaga haysano haystay intii buu qorshe u samaystay, xilligiisa buu aad u beeqaamistay, waqtigiisa wuxuu ka ilaaliyay waxyaabaha waqtiga lumiyo. waxyaabaha ka yaabka badan waxa kamid ah imaam ibn al-Qayyim laftiisi ayaa wuxuu leeyahay imaam ibn al-Jawzi 1000 kitaab ayuu qoray. 1000kaas kitaabna waan daalacday, yani 1000kaas kitaab waan akhriyay aniga. hal baan u akhriyay. marka kadib waxaan ogaaday buu leeyahay inaysan kitaabihiisa 1000kaas kali aysan ahayn, kuwa kalena ay jiraan. marka ma jirto wax anaga aan maanta ku cudur daaran karno oo aan leenahay wallahi adduunyada iyo waqtiga ciriir noqday 24 saac iyo 7 maalmood cid walba la siiyay. qofka ka faa'iideystana waa ka faa'iideystay. faa'iidada ugu weyn markaad ka gaaraysana waa inaad qorshe samaysataa. xaqiiqatan qof walba anaga naga mid ah tijaabadaas uu mari karaa hadduu maanta wuxuu qaban lahay uu qorsheeyo. bas xataa haduusan shaqo kala haynin 20 qof inuu booqdo hadduu go'aan ku gaaro, intaasoo quraan u akhriyo, intaasoo xalaqo u xaadiro, intaasoo cashir u dhageysto, hadduu maanta u qorsheysto wuxuu dareemi doonaa raaxa, wuxuu dareemi doonaa farxad iyo reyn. qodobka labaad oo waqtigeena noo beeqaaminay waxa weeyaan inaan xadidno wax walba iyo waqtigoodi. hawsha aan qabanayno iyo xilliga aan qabanayno. yani maanta inaad liis iska qaadato tiraahdo maanta waxaan qabanayaa waxaas oo aad iska furto waxba ma soo kordhinayso, inuu waqtiga lumay u badan tahay. laakiin maxaa sameynaysaa waqtigii maanta aan qorsheeyay iyo saacad walba wixii aan qaban lahaa. subaxii markaan soo kaco ilaa iyo markii aan seexanay inta u dhaxayso wax walba iyo qorshahooda. طبعا qorshahaasi ha u malaynin oo kaliya hawl la qabanayo inuu yahay. hadii nasiina aad nasanayso, hadii aad cunaynayso, hadii aad muxuu ahay qabays iyo muxuu aad rabtid nadaafad inaad gashid, hadii booqashaad aadaysid, hadii asxaab aad la sheekaysanaysid, hadii aad barnaamij daawanaysid, yani waxay doontaba ha ahaato waqtigaaga waxaad adiga ugu tiragashay oo u qorshaysay ha ku bax. wax ugu weyn waa intaas. sidoo kale waxa muhiim ah qofka bini aadanka aan nolosha aan ku noolnahay ilaahay baa ku abuuray xaalad oo ka samaysan way isjiijid ka samaysan. laqad khalaqna al-insana fi kabad buu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala. adduunyada ilaahay wuxuu ku abuuray bini aadanka daal iyo rafaad iyo ku abuuray bini aadanka inuu shaqaysta laga rabaa. wa laysa lil insani illa ma sa'a.
qofka bani aadamka wax uusan shaqaysanin ma helayo sidaa darteed qofka inuu shaqaysto juhdi badan baa ku jiro juhdigaas badan qofka ka baxay caqabadaha ka hor imaanay mashaakila ka hor imaanay waxyaaba waqtigiisu ku beeqaamin kara waxa kamid ah inuu qofka dhinac wanaagsan wax ka fiiriyo mar walbo qof baad shaqo u dhiibatay shaqadaad u dhiibatay buu si xun ula macaamilay waxaadan ka filanaynin buu ku kacay inaad qofkii daba kacdid ka daba shaqaysid la dagaalantid dhibaato fara badan aad u geysatid adigii fikir badan iyo hami fara badan iyo murug fara badan aad isgelisid iyo inaad qofkaasi saacadan wixii ka dambeeya go'aan ka gaartid laakiin taxadir iyo aad qaadatid talaabo aad hore u qaadid hawshaadana aad wadatid wax isku dhow maaha sidoo kale qofkani mashruucu bilaaway waa waday mashruuci waa fashilmay intuu murug meel la fariisto dadka u sheekayn lahaa tana igu dhacday saanna may sugaysay tolbeelay intuu meel la taagnaan lahaa inuu qofka uu dhaqaaqo oo uu yiraahdo khibrad ayaa ii korortay aqoon iyo cilmi ayaa ii kordhay tan wax baan ka faa'iidaystay tilaabo hore u qaaday ayaa ka muhiimsan oo runtii fursad ah marka inuusan qofku waqti badan ku luminin waxyaabaha dhaca caqabadaha iyo problemiska dhaca aad muhiim u tahay طبعا qodobka afraad oo aadka muhiimka waxa weeyaan tii horaan xogaa ku soo dhirinay inuu qofka shaqadiisa dadka u wakiisho dadka asaga la shaqeeya ama ka hoos shaqeeya ama isku shaqada yihiin inuu qofka shaqadii u wakiisho uu yiraahdo aniga hawshan ayaa hawshan ii qabo hebel adiga hawshan ku ogahay hebel adiga hawshan ku ogahay waxa laga yaabaa hal abuurnimo asaga uusan filanaynin inay la soo baxaan hawshina si fudud oo gaaban ay ku qabsoonto rag asxaabteeduna aqaana waxa jiro waxa wax walba isku soo koobayaan shaqaleen way fadhiyaan iyagana waxa weeyaan daal iyo rafaad marka iyaga daalaan kadib ay shaqaaleey wacayaan maxaa ku jirto ama ay waxaleeyaan marka hore lama rabin qof aad is leedahay ama waxaleey inaad soo xariisato waxa la rabaa inaad shaqadan qofkan ma u qalma aad marka hore ku qaadatid aamin ma yahay ma ku aamini kara خلاص qofkan inaad xarka u sii deysid oo aad tiraad khalaas mas'uuliyadda qaado maalmo hore kugu cusub yahay xoogaa control daba socosho marka dambana si waa la warnamiis banaan ku soo dhigana tiraadid hawshan adaan kugu wareejinay waa kugu aaminay adaan ku daynay ka soo bax aad ay muhiim u tahay runtii in waqti badan kugu baaqanayn oo ogahay waxa kale oo iyadana muhiim ah inuusan qofka uusan maya dhihi karin waxay ka mid tahay waxyaabaha dhibaatooyinka marka waxyaabaha waqtiga baaqaamiya wax ka mid ah inaad maya dhihi kartid dadka asxaaba ku imaanayso booqashay u socdaan sheekay u socdaan ciyaar ay u socdaan muxuu ahay kaftan ay bilaawayaan hawla ku taalo jooga raalli ahaada oo mahadsantiin waa inoo mar kale hawl adag baa ii taalo halkaan aan iska soo dhameynaya mar kale aan ka dhiganaynaa qorshaha noo bedela adigoon xumaan u samaynin laakiin haddaad cid walba oo ku timaada tirahdid wallahi waa ka mudan yihiin hawl walba oo lagugu soo kordhiya tirahdid bas aniga taydan ka tanaasula tanaan dhameystira qofkaanan u yeelataydi waa iska dhaafa maalin dambe waxaad arkaysaa adigoo taadina dayacay ummado kalena ay jaranjaro ka dhigteen sidaa darteed waxaa muhiim ah adoo ixtiraamaya dadka oo mudnaantooda iyo qadarintooda siinaya haddana waqtigaaga adaa iskale sidaad u qaybin lahaydna waa inaad adiga go-aankiisa qaadataa qofka bani aadanka hadduusan maya dhihi karinna sidiisa dhanba waxaa waaye go-aamadiisa isaga ma qaadan kara waa lala qaadanaya waxaa kaloo aada u muhiim ah qofka waqtigiisa wuxuu ku beeqaamin karaa inuu xiriiro fiican leeyahay asxaab badan inuu leeyahay dad kala duwan oo asaga ku xiran inuu leeyahay wax allaal wuxuu u baahda qof uu communication la sameyn karo ama la xiriiri karo oo hawsha fududeyn karo inuu leeyahay yani qofka hadduu yiraahdo wax walbo aniga kaliya samaysanay xiriiro dhan ma samaysanay waxa waa rafaadaya laakiin qofkan mesela hal company la iskala shaqeeya qof IT-du ku fiican yahay qof wuxuu ku fiican yahay xisaabaadku ku fiican yahay qof wuxuu ku fiican yahay muxuu ahaa shaqooyinka kale ku fiican yahay qof wuxuu ku fiican yahay relationship-ka dadka isoo dhaweyntooda qof walba ee meesha munaasabkiisa in loo adeegsado intaad adiga maanta oo dhan warqad iyo design-keeda iyo qurqurxinteeda aad isku mashquulin lahayd waxyaaba content-iga ay ka kooban tahay u diyaari qofka u dhib waxa tiraahdaa in warqad qurxoon ka rabaa IT adiga ah waxa laga yaabaa saad ka rabtay si qurxoon inuu ku soo saara laga yaabaa marka aad inaad xiriir leedahay oo hawlahaas kaga fududeyn karto aad ay muhiim u tahay sidoo kale waxaa muhiim ah sidaan hore ugu soo dhawaajinay qofka hadduu meel mas-uul ka yahay meel ama gurigiisa ha ahaado ama xafiis ha ahaato inuu nidaamsanaado muhiim waay inuu qofkan wax walba meesha yaalaan uu garan karo waay haddii wax walba isku dhex daadsanaadaan wax walba xilliga loo baahda raadis loo galo wax toosnaayo nidaamsanaa la dabagediyo wixii oo muxuu ahay la raadinayna aanan meel loo raadin la aqoonin runtii nasiib darada ka mid tahay inuu qofka qorshe samaysto wax nidaamsada muhiim waay waxa aad u muhiim kale sidoo kale aad iyo aad u muhiim ah qofka inuu leeyahay bilow sax ah wax walbo yani markaad hawsha bilaawayso
bilowgeed inuu ka saxan yahay runtii aad ay muhiim u tahay waxa jira wax la yiraahdo cilmi la yiraahdo waxa la soo saaray mind mapping ama al kharaa'it adh-dhihniya oo la sameeyo طبعا waa course dhan la qaato aad u muhiim ah koorsadaas waxa lagu bartaa qofka inuu hawsha maanta dhan uu qabanayo uu ku sameeyo naqshad ama ma sawir uu ka wada dhigo sawirkaas wuxuu ku muujinayaa hawsha maanta uu qabanayo ciwaan weyn uu sameynaya kadib hawlaha ka farcamaya hawl walba hawsha ka farcamayso sawirkaas uu xifdinaya kadibna maskaxdu ku qaadanaya waxa u fududaanaysa markaas inuu xifdiyo waxa u fududaanaysa inuu xasuusto aqliga baadinka ah dambe ayaa soo xasuusinaya mar walba wuxuu leeyahay sawirkaas meeshan ku yaalo hawshaas ku sugayso runtii iyadana aad ay muhiim u tahay waxa kale oo aad u muhiimsan caalam oo teknolojiyada ay tagtibaan joognaa qofka inuu san dhihin wallahi wax walba sidii hore waayii hore loo isticmaali jiray oo isticmaalaya teknolojiyada inuu ka faa'iideysto yani مثلا waxaan soo sheegay Ibn al-Jawzi inuu kun kitaab qoray hadii qofku yiraahdo ana qalin qaadanayo warqad qaadanayo hadda qoray haduu yiraahdo yani waa waqti ku ciyaarid waa inuu qofkaasi teknolojiyada hadda joogto iyo computerka iyo systemkiisi uu ka faa'iideystaa oo wax badan ka fahma aad ay muhiim u tahay ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa waqtiga waxyaabaha beeqaami waxa kamid ah dadka wax akhriya waliba khaasatan aad u qosaysa inuu qofka barto cilmiga la yiraahdo speed reading ama al-qira'a as-sari'a af carabiga lagu yiraahdo waa akhrinta oo degdega boobsiiska inuu qofku wax badan akhrin karo normal ahaan waxa la leeyahay qofku wuxuu akhrin karaa halkii daqiiqo ilaa 200 oo kelimo ayuu akhrin karaa oo warqad ka akhrin karaa ama kitaab ka akhrin karaa ama buug ka akhrin karaa laakiin waxa la yiri waa la kobcin karaa qofka cilmi la barto oo dhan waayo oo waqti badan lagu bixiyo waxa dadka qaar kood waxay gaareen inay 1600 oo eray ay akhrin karaan halkii daqiiqo yani waxa la sheegaa waxyaabaha John Kennedy madaxweynihii Mareykankii hore waxyaabaha laga sheegay waxa kamid ahaa in uu ninkaasi cilmigaas aad u yaqaanay markii madaxweynaha loo doortay dastuurka Mareykanka oo 6000 page ka kooban inuu ku akhriyay hal maalin marka cilmiga si aad waqtigaad u beeqaamisato waa inaad barataa cilmiga speed reading ama wax akhrinta inaad boobsiiso oo wax badan akhrin karto maalin walba aad wax akhriso joogto ay jiraan xawaaraad aad badisid cilmigaasna kulli waa ka helaysaan qaybaha kala duwan warbaahinta ama ma YouTube-ka ayuu aad u dhaxyaala luqad walba aad rabtad ku helaysaa waxyaabahaas aan soo sheegnay waxay kamid yihiin waxyaabaha waqtiga beeqaami waxyaabo kalena way jiraan laakiin inta ugu muhiimsan ayaan ka soo qaadanay waxaan rajaynayaa inaan faa'iideynay qof walba oo naga midana insha Allah ta'ala oo noloshiisa ku dabaqi doono ka fiirin doono inuu ka guul gaaray in kala aad u mahadsantihiin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh